maanta maalintii aan shalay maalintii askartii ku tiri 2004 5 and miss 6 meelahaas aan ilmaha kaloo dhalay ilmaha labaad sharciga askartii waday wan celinayna wadankiisii aan ku ma celinaysa mee sharciga aan u qaaday haddana kii aan sharciga u qaaday maanta haddana walaalkii keenay walaash jaamacadda ka soo saaray ugu dambeeyay ubadkii ugu afar caruur ay ka soo qubay bileena kaaga iga dhuftay saddex bataana iga soo daadiyay haddana ilmo kale keliya ku riday ilaa saddex bilood oo iga soo daatay haddana waxaasna aan u soo sabray buu haddana maanta maxkamadda ii tegaya si aniga dhibaataan u arko uu maxkamadda ashkateynaya waa kan noloshiisa seef gareeyey aan ku odhisha ubadkaan daraadii sharciga ugu qaad haddana maanta Soomaaliya jeclaa way ka dhintay aabayga tutaastay u dhintay adduunka aabay way jeclaa aabay way ka dhintay maanta 12 nin baa la dhashay wari maayaan ehelkeeda qabiila bii wasix badanaya maanta anu dhibaatadaana ma kaysan ilaahay bay qadaray qofkad wanaajisa uu ku xumeynaya kad wanaajisa maanta waxweyn ubadkaasi maanta waa dahab maanta ubadkaasi waxaa ka soo saaray ubad tayo leh mid wiil waa maasantay ma jirto mid ubadkiisa ku farxay ma jirto cid ku soo garab istaagaysa ma jirto islaamnimo walaaltinimo aakhiro xagga la geli doona aakhiro xagga la geli doona walaal ma jiro hooyo ma jirto ehel ma jiro adigi maadana taala ugu raacay adigi maadana qofka nama oga wanaagad samaynayso habeeni maalin camal wanaagsan baraadsanay habeeni maalin dad wada caawinaya habeeni maalin kalmadu sadaqa ku shaqaysanay habeeni maalin camal wanaagsan ma urursanay habeeni maalin qof wada caawinaya habeeni maalin wanaag laakiin qof aadee kuu garanaya ama kuu garaabaya ma jiro qof garabkaaga istaagi ma jiro aan ilaahay ahayn ma jiro islaamnimadu ma jirto walaaltinimo ma jirto ehelnimo ma jirto soomaalinimo ma jirto cid kuu dhaxaysa ma jirto gurigaasa ku xidhana shaqeeya ilmaha bariiskiisa 6 saac u soo shaqeeya maanta kii sharcigaan u qaaday haddana maanta inuu kolba telefoonka igu dhigo uu kolba naagi swiirsha u tago markuu lacagaystay uu naag kale swiirsha gursaday uu kibray ayuu maanta saa igu digdiganaya ilaahay baan ku reebay ilaahay baan saddexda aabbawa ilaahay baan ku reebay waliya bilaahi laakiin waxaan ku seexanaya oo kusoo toosaya ina shantayda umad aanu keligay kursaday ilaahay ka sogo oo habeen quraane odhan aabba waxaasa khalad waxaasa حاجة جلسة آخر حاجة جلسة آخر هو يسلم يسلم وينيو حاجة جلسة آخر وهذا وناك ستيات الحطة والحط الصومالي محمد الله الحطة وناك ماركيا هذا وناك ستة والحطة هذا الحطة والحطة هذا صد قف على لي قف كوراني إلهي كل الشيء كوجي إسكان الصومالي كوي تمني بايلنا شيء هذا يقول إني بعطيه لم يقص kuwa labada waaweyn markan 1991 markay foosh guriga qabad kayadna marka ku xambaar shalid jirban cid aabay ka qari walaalana ka qari dhibaatada qarso ilaahay tala saar ninkaaga ibtiisa astur ninkaaga ibtiisa astur ninkasta wanaajiyo oo wanaagsan oo halka madaxa u saar karaamaha siiba oo wanaajisaba adu kugu dul xaaraya kuwi kula dhashay kula mid cid ma haysta ma jirto cid alaaliya aan ubadka ahayn ma haysta ninka caawa cid aan haysta mala sideed toban dhasho waxa weeyaan abaar baan ka taagnay 30 sano kaliya wax qabsanay maanta iyagii baan ka cararaya iyagii baan dhibaateynaya xagga u cararaan uga ma iyagii ma dhicin kala iska ilaali ma eelka iska ilaali ma xagga iska ilaali xagga qabtaan uga wax